intiinii la socotay barnaamijka qaybtii labaad oo inoo joogtay markii uu qaysar telefishinka Aljazeera ka ogolaaday inuu wareysiga siiyo balse uu ku xidhay shuruudo ay ka mid yihiin in codkiisa, muuqaalkiisa iyo qaabkiisa toona la duubin. taa beddelkeedana uu turjumaanka dhegta ugu sheegi doono. waxa ay maanta qaybteena saddexaad ka bilaabmi doontaa su'aal qaysar la weydiiyey oo ahayd iyadoo Bashar al-Assad ogsoon yahay isla mar ahaantaasna ay suurtagal tahay inay marun caalamka u soo bixi karaan sawiradani sida ay ku fududaatay ama ay ugu suurta gashay inuu qaysar qaado sawirada noocan oo kale ah muddo 2 sanadooda. qaysar waxa uu sheegay in ay Bashar al-Assad iyo ciidankiisu aaminsan yihiin inaan cid waxba ka qaadi karin xataa haddii la ogaado ama ay si toos ah u soo bandhigaan dhibaatooyinka ay geystaan. sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka dhadhacsan tahay in ay sharciga ka sarreeyaan isla mar ahaantaasina dowladaha garab taagan qaarkood ay arrintaasi ugu sacbatumaan oo ay wada aaminsan yihiin inaan cid waxba weydiin karin. qaysar waxa kale oo uu tilmaamay in sawiradani iyo muuqaalo kaleba haddii la helo aanay danka lahayn Bashar al-Assad iyo ciidankiisu, balse lacalla haddii ay ogaan lahaayeen ay adkaan lahayd in uu la soo gudbo. su-aasha kale la weydiiyey qaysar ayaa ahayd inkastoo ay adag tahay in la eego sawiradani ama si fiican looga bogto, balse adiga oo dhex taagnaa isla mar ahaantaasina ahaa qofkii qaadayay goobjoogna ka ahaa dhacdooyinkani, sideeba uu noqday dareenkaagu markii aad la kulantay sawirro noocan oo kale ah? waxa uu sheegay inay arrintu markasta adag tahay marka aad goobta ku sugan tahayna ay kasii adag tahay. qaysar waxa uu sheegay inay markasta dareensanaayeen inay jirto khatar noocani ah oo ku iman karta qoysaskooda ama carruurtooda ama sidoo kale dadka ay qaraabada yihiin. taas darteed waxa uu qaysar go'aansaday inuu halkaasi sii joogo oo uu qaado sawiradani iyo inka badan si uu caalamka u horkeeno isla mar ahaantaasina ugu soo bandhigo isagoo aaminsanaa in maalin maalmaha ka mid ah ay ku dhici karto cid qoyskiisa ka mid ah ama qaraabadiisa ama xataa dadka ay asxaabta yihiin. qaysar waxa kale oo uu sheegay inay sawiradani ku qaadatay muddo 2 sanadooda inkastoo uu go'aansaday inuu marka hore doonay inuu iskaga soo baxo, balse haddana waxa uu ku adkaystay in uu qaato hubkiisa oo ahaa kamaradiisa isla mar ahaantaasina uu duubo ama uu qaado sawir kasta oo suurtagal ah oo hadhow uu soo bandhigi kara caalamka. taasi oo uu waday muddo 2 sanadooda waxaana uu sheegay in maalin kasta uu qaadi jiray qayb sawirra isagii asxaabtiisu isla mar ahaantaasina uu ku diyaarin jiray dokumentiyo fara badan iyo isaga oo dhigi jiray goobo u gaar ah oo uu calaamadsaday. waxaana uu ku daray maalin kasta inuu gurigiisa kula noqon jiray ku dhowaad 1,000 sawir oo ka kooban sawirada uu soo qaaday, balse qaysar waxa uu dulqaadan kari waayey muddo kadib in uu sii sugnaado isla mar ahaantaasina uu kusii jiro gudaha Suuriya. su-aal la weydiiyey oo ahayd in haddii la ogaan lahaa xaalkiisa isla mar ahaantaasina mar uun lagu qaban lahaa siduu arrin noqon lahaa, waxa uu sheegay in ay maalintaasi noqon lahayd maalinta noloshiisa ugu dambaysa isla mar ahaantaasina qofka ugu horreeya ee soo gaadha uu nafta dhaafin lahaa maadaama oo ay tahay ciidan aan la kala amar qaadanin balse ay muhiimadu tahay in qofka loo dhameeyo ama sidoo kale nolosha la dhaafiyo. qaysar waxa uu markii dambe u soo baxay dalka dibadiisa isagoo doonaya inuu xaqiiqadan soo bandhigo. Bashar al-Assad oo ah ninka u taliya dalka Suuriya kuna haysta xukunka militariga uu ka dhaxlay aabihii mar la weydiiyey wareysi uu telefishin siiyey sawiradan iyo waxa ka jira waxa uu sheegay in aanay cidna caddayn karin isla mar ahaantaasina maxkamad kasta oo la hor keeno sawiradani aanay ahayn mid caddayn ku soo dhigi karta maadaama oo sawiradani aan la hubin karin run ahaantooda iyo been ahaanshahooga. su-aashaasi su-aal la mid ah su-aasha kale ee qaysar la weydiiyey ayaa ahayd waxa dadka qaar ku kalifa sida Bashar oo kale in ay ku kacaan arrimahani foosha xun leh, dadka qaarna ku kalifa isaga oo kale in ay soo bandhigaan ama ay xaqiiqada u fulaan geed dheer iyo geed gaaban. qaysar waxa uu sheegay in aanu su-aashaasi jawaab rasmi ah u haynin balse uu caddayn karo in ay arrintaasi jirto isla mar ahaantaasina ay tahay mid ka mid ah go'aanada dadku qaadan karaan xilliyada qaar haddii aad doonayso inaad xuquuqda garab istaagto ama aad qofka xaqiisa garab siiso. qaysar waxa uu sheegay in ay dadku ku qanacsanaayeen inay dhacsadaan xorriyadooda shacabka reer Suuriyana ujeedada ay u soo bixin ay ahayd inay xorriyadooda la soo noqdaan kana xoroobaan nidaamka keliya taliye ee muddada dheer soo xukumayay dalkaasi.
balse aanu qofnaba dareensanayn in arrimahaasi foosha xun leh uu ku kici karo Bashaar al-Assad isla mar ahaantaasina ay dhibaato u geysan karaan shacabka reer Suuriya. tan iyo 2013 oo ahayd markii ay sawirradani dibadda u soo baxeen, caalamku waxay isweydiinayeen su'aalo fara badan oo ay ka mid tahay dadka reer Suuriya arrintani ma ogsoon yihiin mase dareensan yahay inay gudaha Suuriya ka jirta arrintaasi. Maazim waxa uu ku farxay in ay xaqiiqadu soo baxday isla mar ahaantaasina waxa uu Ilaahay ugu mahadceliyay in uu xaqiiqada soo saaray isaga oo ka rajo ka qaba in Qaysar la horkeeni karo maxkamad. sidoo kale ay garyaqaanadu sheegeen waxay sheegeen inay diyaariyeen ku dhawaad 8 dacwadood oo dil ah isla mar ahaantaasina lagu qaadi doono Bashaar al-Assad iyagoo la kaashaday khubaro sarsare oo ka mid ah shuruucda caalamiga ah iyo sharciga dilalka ama ciqaabta caalamka. balse su'aashii isweydiinta leh ayaa ahaa sawirradani in laga dhex aqoonsan karo shakhsiyaad ama sidoo kale dad isku ehela ama ay dadka reer Suuriya ka aqoonsan karaan dadkii ay waayeen. nasiib wanaag, Maazim waxa uu ka dhex aqoonsaday qofka qaar ka mid ah qaraabadiisa sida in adeertii oo deganeed magaalada Dimashq sida uu sheegay isla mar ahaantaasina ku dhimatay gacanta nidaamka Suuriya. balse muhiimaddu waxa ay tahay in sawirradaasi caalamka loo soo bandhigo. laakiin Maazim hadda waxa uu deganaansho ku haystaa dalka Holland isaga oo ku degan xuquuq qaxoontinimo isla mar ahaantaasina maangeliyaalkaasi ka haysta. Cabdilmaajid Barakaad laftigiisu waxa uu aaminsan yahay in Bashaar al-Assad uu xaalka isla mar ahaantaasina aanu waqtigan waxba laga qaban karin inta uu xaalkani ku sugan yahay maadaama uu haysto kursiga iyo nidaamka dalka Suuriya. balse Siija 5 sano waxay heshay 700,000 oo xaqiiqa ama sidoo kale dukumentiyay sawirro iyo waraaqo isugu jira, waxaana ay sheegeen in qaybo ka mid ah ay diyaar yihiin 8 ilaa 9 dacwadood oo ka mid ah la diyaariyay, balse ay raadinayaan maxkamadii qaadi lahayd ama xeer laaliyihii eegi lahaa. balse mushkiladda ayaa taasi ah ilaa hadda ma jirto maxkamad u diyaara inay arrintaasi qaado. Ruushka iyo dowladaha dhinaca ay yihiin ee taageersan Bashaar al-Assad ayaa u diyaara inay hor istaagaan oo ay ka dhigaan waddo kasta oo loo mari karo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Laahay ku taala sidii loo horgeyn lahaa qadiyadani. inkasta oo dalal ka mid ah Yurub ay sameeyeen dambi baadhis iyo sidoo kale xaqiiqa raadin gudahooda, balse taasi ma aha mid ku filan ciqaabta Bashaar al-Assad ama in la horkeeno maxkamadda cadaaladda adduunka. Siija waxay rajaynaysaa in mar uun gacanta lagu dhigo dacwad qaadihii oogi lahaa arrintaasi isla mar ahaantaasina la horkeeno maxkamadda cadaaladda adduunka. waxa kale oo ay sheegeen 20 sanana ha noqotee in ay dadka reer Suuriya adag tahay inay kasoo kabtaan dhibaatooyinka la gaadhsiiyey ee isugu jira niyad ahaan iyo sidoo kale hanti ahaan, shacab ahaan iyo wixii la mid ah. balse reer Suuriya ayaa ilaa hadda la tabaalaysan dhibaatooyinka soo gaadhay. Cabdilmajiid waxa uu isagu deganaansho qaxoonti ka haystaa dalka Suuriya, dalka Turkiga maadaama oo markii hore uu ka soo qaxay dalkiisii Suuriya. sidoo kale Maazim waxa uu degan yahay dalka Holland. Qaysar maadaama oo uu ka gaabsaday in la sheego shakhsiyadiisa iyo sidoo kale codkiisa in la duubo, waxaanu siinay jaanis ah inuu caalamka la wadaago aragtidiisa ku saabsan arrintan iyo sida wax looga qaban karo. waxaana uu sheegay in kastoo ay adag tahay in wax laga qabto isla mar ahaantaasina Bashaar al-Assad hadda haysta ammaanka uu haystay waqtiga hore mid ka badan isla mar ahaantaasina uu ilaa hadda ka taliya dalka Suuriya. laakiin muhiimaddu waxay tahay in caalamku ku baraarugaan kumanaanka dadka kor u dhaafay ee dhibaatooyinka ay ka haystaan nidaamkiisa, kuwa uu dilay, kuwa la laayahay iyo sidoo kale kuwa wax xidhan. sidoo kalena ay wax ka qabtaan arrintaasi isla mar ahaantaasina ay iyaga hortaalo si dadka reer Suuriya ay cadaalad ugu soo dhicin lahaayeen una heli lahaayeen cadaalad waarta. ilaa iyo hadda Bashaar al-Assad waxa uu haystaa dalka Suuriya maadaama oo ay garab siinayaan dowlado ay ka mid yihiin Ruushka iyo Iiraan. isla mar ahaantaasina waxa uu hadda 80% dhulka Suuriya gacanta ku dhigay isagoo uu dib u soo ceshaday kooxihii mucaaradka ahaa Daesh iyo sidoo kale jabhadda al-Nusra oo Mareykanku waqtiga hore u aqoonsanaa argagixiso. dalka Suuriya ilaa iyo hadda waxa ka taagan colaad ku dhow muddo 8 sannadood ah, taasi oo soo bilaabantay 2011 ilaa iyo haddana socota. balse xaalku waxa la sugi doonaa halka uu saldhigo. isla mar ahaantaasina su'aasha ay Al-Jazeera caalamka ka tagtay ayaa ahayd goorma ayay noqon doontaa marka cadaaladda la horkeeni doono madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Assad iyo xulafadiisa.
daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka Al-Jazeera ka diyaarisay dhibaatooyinkii uu geystay madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad kaasi oo magaciisu ahaa muharibuun xaqiiqa ama qofkii la soo dhuuntay xaqiiqada oo aynu ka diyaarinay 3 qaybood oo ay qaybtani ugu dambeysay intaynu barnaamijka xigay isugu iman doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo